واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. alle keligii caabuda idima sugnaanin ilaah alle sokadiisa. Arinkaana waa mid ku tusaya kalimada towxiidka ee laa ilaaha ila allah. arintaa waxaa lala soo diray dhammaan rusushii la soo diray. muhiimadda iyo ujeedada iyo hadafka rusushaas ma ahayn inay kaliya gaarsiiyaan dadka kalimadan si ay u dhahaan, kadibna markii ay dhahaan ay isaga tagaan. bismillaah, allah ayaa mahadoo dhan u sugnaatay. allah ka raali noqda nebi muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabta iyo dhammaan inta raacday. laa ilaaha ila allah waa afar eray oo haddii ay aadanuhu si dhab ah ugu dhaqmaan ay gaarayaan liibaantii adduun iyo aakhiroba. sidoo kale waa afar eray haddii ay aadanuhu ka tagaan ku dhaqankeeda amaba ay sheegtaan ayagoo ka been sheegaya ay ku mutaysanayaan ciqaab sokaysa iyo mid dambaysa ee maalinka qiyaamaha ah. intaa kadib rasuul walba oo la soo diro laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa nebigeena muxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa lala soo diri jiray inuu gaarsiiyo dadka kelimada ama erayga laa ilaaha ila allah. kelimadaas waxa ay wadataa diidmo iyo ogolaansho. waxa ay diidaysaa in ilaah laga dhigto wax walbo aan alle weyne ahayn, ayadoo ilaah looga dhiganayo in laga qaato xalaal iyo xaaraam, sidii ay yuhuuddii loo carooday sameeyeen markii ay kuwooda cilmiga iyo cibaadada badnaa ka dhigteen kuwa la raaco alle sokadiis. sidoo kale waxa ay diidaysaa kelimadaas in la caabudo oo la siiyo cibaadada noocyadeeda oo dhan cidaan alle weyne ahayn. waxay ogolaanaysaa sidoo kale kelimadaas in allah keligii laga dhigto ilaah. sidoo kale waxay ogolaanaysaa in cibaadada noocyadeeda oo dhan loo kali yeelo alle weyne keligii, haddii ay tahay cibaadadaas mid ictiqaad oo laga rumaynayo xagga qalbiga amaba ay tahay mid itibaac oo la raacayo. macnaha arrinkaas ee diidmaha iyo ogolaanshaha ayaa ah inuusan jirin cid awood iyo qasbid ku leh caalamka, inuusan jirin cid wax tari karta waxna dhibi karta, wax arsaaqi karta amaba dabiri karta oo kala hagi karta arrinka nolosha iyo noloyaashaba aan ka ahayn alle weyne subxaanahu wa tacaala. sidaa awgeed cidna xaq uma laha in lagu caabudo cabsi iyo rajayn, cidna xaq uma laha in lagu caabudo baryo iyo isku halayn. sidoo kale cidna xaq uma laha in la raaco amaradiisa lagana fogaado waxyaalaha uu reebay aan ka ahayn allah. alle weyne waxa uu yidhi: wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. maanan dirin hortaa mid la diro ilaa waxaan ugu waxyoon jirnay oon u sheegi jirnay arrinka inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo ilaa aniga mooye, ee aniga keligaya caabuda. arrintaa waxaa lala soo diray dhammaan rusushii la soo diray. muhiimadda iyo ujeedada iyo hadafka rusushaas ma ahayn inay kaliya gaarsiiyaan dadka kelimadan si ay u dhahaan, kadibna markii ay dhahaan ay isaga tagaan iyagoon kala dhexgalin dadkii iyo wixii ay dadka naftooda uga dhiganaayeen ilaah iyo kuwa la caabudo. oo ma ahayn mid ka doonaya qoomkiisa kaliya dhihidda eraygan laa ilaaha ila allah, balse ujeedadooda iyo muhiimadooda waxa ay ahayd inay dadka u addoomayaan midka abuuray oo arsaaqay kuna camiray dhulkan, kaasoo keligiisa xaq u leh inuu kala wado noloshan oo dhan. rasuul walbana waxa uu ahaa mid ka doonaya qoomkiisa inay alle keligii u baraxtiraan cibaadada iyo daacada oo dhan, oo ma ahayn mid ka doonaya kaliya dhihidda laa ilaaha ila allah, ee waxa ay ahayd mid ka doonaya dhihidda iyo inay ku camal falaan waxyaalaha ay tusinayso kelimadaas. rasuul walbana tolkiisa waxa uu kula hadli jiray luqadooda ay fahmayaan ilaa ay caddaynta ka dhammaystiranto. alle weyne waxa uu yidhi: wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum fayudilu allahu man yashaau wayahdii man yashaa wa huwa alcasiizu alxakiim. maanan dirin mid la diro ilaa waxaan la diri jirnay qoomkiisa luuqadda ay ku hadlayaan si uu u caddeeyo qoomkiisa xaqa, kadibna alle weyne ayaa lumin jiray ciddii uu doono, alle weyne ayaana hanuunin jiray ciddii uu doono. alle weyne waa mid sharaf badan oona xikmad badan. sidoo kale alle weyne waxa uu noo sheegayaa iyadoo rusushaas ay ku kala duganaayeen luqadahooda inay dadka gaarsiin jireen hal xaqiiqo oo ah: ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh. alle keligii caabuda, idima sugnaanin ilaah alle sokadiisa. arrinkaana waa mid ku tusaya kalimada towxiidka ee laa ilaaha ila allah. haddaba waa kee
qofka ajiibay dacwada rusushaas oo dhan lala soo diray waa mid walba oo yiri laa ilaaha ila allah kadibna caabuday allah keligii kuna gaaloway ilaahyada allah ka sokeeya kana fogaaday daaquud kaas ayaa ah muslimka ajiibay dacwadaas rusushaas lala soo diray balse qofkii kalimadaas dhahaa kadibna ku adkaysta cibaadada alle sokadiisa lagama soo qaadayo muslim ajiibay dacwadii rususha oo dhan lala soo diray calayhim assalaam qof walba oo kulmiya dhihida laa ilaaha ila allah ayadoo ay la socoto cibaadada alle sokadii qofka kama baxsano labadan xaaladood midkood kow inuu yahay mid aanan faham weyn u lahayn ujeedada kalimada amaba aysan kusoo gaarin luuqad uu fahmayo labo iyo inuu fahmayo macnaheeda iyo ulajeedadeeda balse uusan doonayn inuu ku dhaqmo labadaas xaaladoodba kuma kasbanayo dhihida laa ilaaha ila allah sifo ama qaab islaam maxaa yeelay xaaladda koowaad waxa uu noqonayaa gaal isla markaa jaahil ka ah kalimada macnaheeda iyo ulajeedadeeda marka labaadna waxa uu noqonayaa gaal madax adag sababtoo ah qofka ereygan dhahaya waxaa shardi ah inuu cilmi u leeyahay waxa ay tusinayso iyo waxa ay diidayso sidoo kale waa inuu cilmi u leeyahay waxa ay keensanayso xagga barax tirida cibaadada iyo ka tagidda cibaadada alle weyne sokadiisa alle weyne waxa uu leeyahay فاعلم أنه لا إله إلا الله ogow oo cilmi u lahow inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo alle mooye sidaa awgeed shardiga ugu horeeyana ay tahay cilmiga waxaa waajib ah qofka inuu cilmi u yeeshto marka koowaad kadibna uu si barax tiran ugu dhaqmo